Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan akhyaarta YouTube aan salaamay. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidee haddii administratorka kombiyuutarkaaga oo disable noqdo automatic ama laga dhigo sidee ciladaas ugu saari kartaa. Inta badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay automatic ugu xirmo ama laga yaabaa inuu qof ka xiro. Sidee marka ciladaas u saaraysaa administratorka haddii laga xiro ciladan soo socoto markaan bilowno. Marka ciladan ku soo saaraya ku qoran tahay administrator, your account has been disabled, please see your system administrator. Yes, haddaad dhahdid akoonkaaga markasta waa xiran yahay, ma geli kartid. Ujeedaa mida kale xogaanaysa haddii user kale lahaan lahayd waad geli lahayd laakiin intaba ma lahid. Marka ciladan say u samaynaysaa ciladan waxaa lagaaga baahan yahay in aad samaysid si sahal ah. Waa ujeedaa meesha ku qoran koonahaas meesha laga damin lahay intana stickerkayga waay intana computer internetka hadduu laptop yahayna wirelesskaaga ayaan ka qoran. Markasta hadda xitaa ku dhufatid aad isticmaashid baa ujeedaa waxaa ku isticmaalaysaa aad samayn socotahay inta waxaa ku arkaysaa si fiican okay markaad dhahdid haddana soo laabatid markasta wuu kuu soo baxe. Marka shiftiga ayaad qabanaysaa keligaa hamar ku siinaysaa shiftiga adigoo haysid ayaad haddana waxaa leedahay restart. Shift waa inaad marka ka horeysaa kadibna restart ayaad dalbanaysaa waxaynaysaa shiftiga ilaa xoogaa si uu kombiyuutarka isku soo shido. Sababta waxaa rabnaa inuu galo safe mode-ka waa inuu galo marka hadda gacanta ka qaadina dhimalaan si uu safe mode-ka u galo. Marka meeshaas waxaan ka samayn karnaa ujeedaa meeshan ayaan nimaanay waa meesha aan muhiimadda rabnay. Meesha markaan nimaano waxaan leenahay troubleshoot ayaan ka dooranaynaa kadibna waxaan leenahay advance option ayaad tegaysaa kadib waxaa leedahay starting setup start up setting ayaa ka dooranaysaa kadibna sidaan ayuu kusoo saaray. waxaa leenahay restart dheh si aan safe mode-ka u galno mar kale. Marka sida aan kusoo saaray si aan u galno safe mode-ka waxaan doonaynaa number 4 ama F4 midka ardid ayaad dooran kartaa. Aniga F4 iyo father 4 ayaan taabanaa. Safe mode-ka ayuu si automatic u aadaa. sababtoo safe mode waxay tahay kombiyuutarka waa meesha kaliya oo laga sameeyo ama laga hagaajiyo haddii ku timaado cilad. Meeshaas ayaa gudaha u galaysaa haddii passwordka kaa xirmo haddii uu kaa xirmo mataqaanaa cilad ku timaado kombiyuutarka meeshaas ayaad ku laabanaysaa. Markaan sugno markada waxaa ujeedaa waxaan imaanay meeshii qaybtii ammaanka loo bixiyay ee safe mode ku qoran tahay. Meeshaan waxay tahay kombiyuutarka marka hore nooma gelaynin ardayga su-aasha waa inuu fahmaa meeshan awal kombiyuutarka caadiga nooma gelaynin haddii aan isku daynayna usernameka dib uga laabano nooma shaqaynayo. Waa in aad la socoto sidaas. sababta waxaa ogaanaysaa meeshan safe mode-ka waxaa kusoo baxay inaad control panel-kii kombiyuutarka si toos ah ina meesha ka maamushid. kadib markii safe mode kusoo baxda calaamadaas ugu garatid kadib waxaa leedahay start menu ayaa right click ku leedahay kadib waxaa leedahay control panel ayaa tegaysaa. control panel-ka waxaan rabnaa inaan tagno maadaama administratorka disable yahay ayaan waxaan ka rabnaa kasoo dhigno enable inaan kasoo dhigno. kadib waxaad tegaysaa administrative tool ayaad tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa computer management ayaad tegaysaa kadibna markuu ku furmo waxaad tegaysaa local user group ayaad ku dhufanaysaa kadibna users ayaad tegaysaa double click ayaad siinaysaa sida kugu furmo kadibna administratorka ayaad tegaysaa right click ayaad ku leedahay kadibna waxaa leedahay properties ayaad tegaysaa. marka wuxuu ku tusahay meeshan enable waaye hadeer disable kama aha enable waaye hadee disable ay ahayd meeshan laakiin enable waa hada ujeedaa. si aan markasta aad expire-ka uga hagaajisid okay ayaan leenahay safe mode-ka kan haddaan ku dhahno properties fiirina sigana ujeedaa default key inuu ahay ujeedaa kan ayaa default waa inaan ka dhignaa sheekay meeshaas ka qaada disable-ka in aad ka dhigtid enable ay noqonaysaa markaas kadibna apply ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay restart ayaad ku samaynaysaa kadibna restart ayaa leedahay. marka waxaan rabnaa markuu dib usoo shido inuu username-keena si toosa u galo insha allah saas ayaan rajinaynaa. kadib dib noogu soo kacay waa diyaar hadda marka passwordki aan ku tijaabinaynaa oo hore noogu galayay. kadib marka password geliyo aan negastiga waa si toos inuu galo waaye sababtoo meelihii uu ka xirnaana waxaan kasoo furnay insha allah midna waxaan u malayn doonaa inaad wax badan ka faa'iideysan doontaan. inta badan qaladaadka ka yimaada window 10-ka
wax badan ayaa ka baranaysaa markaad DVD ama CSV ama waxyaabaha haysatid sida passwordka loo furo waxyaabo badan ayaa ku baranaysaa. hadda way noo sahlanaatay si toos ah markaan qalno shift yaan restart ku sameynay safe mode ayuu si toos ah noo geeyay sidaas ayaan u hagaajinay markuu ku fududaa wax badan insha Allah bidna kariim waan fiirinaa marka si toos ah inaan u galno hadda wuxuu sameynayaa inuu welcome ka noo soo qoray kaasaan ka sugayn insha Allah bidna kariim in uu window noo furmo hadduu noo furmaayo cilada maana ka saarin sidaas ayaan u soconaynaa waa ujeedaa marka window 10kii uu furmay sidaas ayuu kuga caddaa marka programka markuu kaa xirmo administratorka oo ciladaas kugu timaado wax badan kuu fudanaysaa maxay ogaanaysaa insha Allah bidna kariim ciladana inaa boqolkiiba iska bixi kartaa inay fudud tahay haddii ay kugu timaado ciladan haddii computerka ku dhicin kaliya ma ahan inaad baratid ayaa muhiim ah ciladaha badanaa windowgii soo loo saaro waa window 10kana oo windowgii mataqaanaa ugu casirsanaa ugu dambeeyay ee soo baxay marka insha Allah bidna kariim ka faa'iidaysi wanaagsan wixii su'aalo fadlan ka soo qor laagi subscribe share la samee waana mahadsantihiin wax badan hadda ma sha Allah bismillah war subscribe-giga wuxuu maraa 120 qofkii subscribe igu sameeyna am sub back ana si toos ah markaan hore qofkii iga soo sameeyaba isla markiiba subscribe channelkiisana ku sameynana dhamaantiin ina kala faa'iidnaya muhiimada hadina walaaka kale subscribe ku sameeysi channelkiisana u sharaxmo بريكا ما نوجه وحسوق اليوم إن شاء الله بنا كريم كفاية دي سونقتن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا